marka saddex finaanad iyo afar finaanad iyo aad qaadato sida registerkaas tirada dib ay u celinayaan oo sida naga registerka ay u controlan oo kala u control kartaa ma ku qarin kartaa isleeda ma ka bixinayso waxay ku keenaysaa cudurro kale inta xagga maskaxiyanka dadka ay fariintan la hadlayso maanta waxay iskugu jiri doonaan kuwa xaraabo ka dhigan doona kuwa suurad xumeynaya oo u boodaya dhinacaas iyo dhaqanka iyo kuwa saddexaad oo runtii mudnaan siin doona macnaha weyn ee ay xambaarsan tahay warbixintan oo aan waraysyada ku dhex jira u xulanay dhaqaatiir si gaara ugu takhasustay daweynta cudurkan naasaha gaar ahaan kuwa ragga kuwani waa sawirada rag aan Soomaali ahayn oo ay ku yaaliin naaso xadka iyo xargaha goostay oo aan boqolo loogu talagelin bilis xawalay mooye waxaase dhab ah in ay jiraan rag Soomaaliyeed oo kuwan iyo kuwa ka sii waaweynba leh lagana yaabaa inay qaarkood i daawanayaan Dr. Xuseen Cabdicasiis oo takhasuskiisu yahay daweynta guud iyo qalliinka muddo 10 sano ka badan ka soo shaqeeyay isbitaalada Muqdisho iyo gobolada dalka ahna gudoomiyaha jaamacadda Cambridge iyo dhakhtar ka howlgala Jaalisiyaad Hospital oo dhawaan Muqdisho laga furay bulshadana u soo kordhiyay adeegyo caafimaad oo tayo leh ayaa sheegaya in ragga Soomaaliyeed ee naasaha leh ay soo badanayaan gynecomastia waa mushkilo runtii la xiriirto hormonesku ama dhacaanada waxayna mushkiladda ay ka jiri kartaa imbalanceation inuu ku yimaado labada hormoon ee loo kala yaqaano testosterone iyo estrogen main dominant inay ragga ku aad waxa loogu talagalay testosterone oo ay ku badato haddii infertile ay noqoto estrogenka ay badato oo sida caadiga loogu talagalay female-kina ku badato qofku wuxuu yeelanayaa naasihii dumarka oo kaleento inta uu la egyahay naaska dumarka ayuu la ekaan karaa naaskiisa mar walbana uu naaska weynaadana lama dhigi karo mushkiladaas keento kaliya sababtoo marka qaar qofka hadduu hilib leeyahay waa laga yaabaa sometimes laakiin tan wuxuu gaarayaa inta naas dumar uu gaaro kaleento cabir ahaan iyo dhacan ahaan oo dhan marka waana mushkilo qariib ku ah ragga oo aan loogu talagelin ama cilmiyan aanan completely aanan ku habbooneyn raggu marka gynecomastiadaas ayada laftarkeedu qofku waa la saxi karaa oo qalliimo kala duwan oo lagu sameeyo ayaa jirto Xuseen Cabdicasiis oo ku magac dheer Fadxi waxa kale oo uu sheegayaa in dhibaatada raggaas haysata ay tahay xishood dhaqaatiirta lama xiriiraan saaxiibadood way kala hareen goobaha dabaasha sida badaha iyo webiyada ma tagaan garoomadii kubaddana way kala caageen haddaba xalka iyo dawada ay dhakhtar Fadxi iyo isbitaalkiisa Jaalisiyaad ee dhawaan la furay ay hayaan maxay tahay inta badan ragga xanuunkan qabo laba finaanad saddex finaanad dhar badan oo hoos gashiyaal fara badan ay gashtaan isla mar ahaantaasina waxay aad aysan u jeclaysanaynin la kulanka dadka iyo ku dhex jirka dadka iyo aysan aad u jeclaysanaynin khaasatan meelaha ay ragga sida gaarka isugu yimaadaan badaha iyo webiyada iyo banooniyada iyo waxaasoo dhan ayaga ma aad uma jeclo waana runtii aad important ugu tahay qofka markuu xanuunkaas qabo inuu exercise fara badan uu sameeyo oo meelaha banooniyada iyo uu tago oo exercise ka qayb kamid ah way saacideynaysaa laakiin later on time qofkaas wuxuu u baahan karaa qalliin وايا marka doctor muxuu xalku yahay yani dhalinyaro badan baa jirtay maxaad idinku yani kiisaskan waa cusub yihiin oo malanaya Soomaaliya goormay soo bilowday waxaan la arkay oo dadku qaba ay idin yimaadeen bal sharaxaad sii wallahi ka Jaalisiyaad ahaan dad badan oo xaaladaas ka cabanay way noo yimaadeen qaar baan daawooyin iyo jadwal access aan siinay oo macnaha stage-kooda marka horeba uu ahay stage-ya asiga kala duwan u leeyahay mar qofka completely uu dumar u ekaanaya jirto oo calaamadii astaantii dumarka oo dhan laga helayo markii oo maadooyinkan hormoneska female-ka ay ku bataan qofka calaamadii dumarka oo kale u yeelanaya oo ah calooshii oo kale inay ku badato duxdi cajirada oo kale meesha cajir rag oo adag u yeelan lahaay oo kale maskalka ay ku badnaan inay ku badato kale duxdi oo kale daamankii oo kale
garbihii oo kaleento keliyihii oo kaleento meel kasta oo dumarku ay ku badan jirtay duxdii ku badanaysa automatically marka waa appearance qofka oo female kula yeelna marka sad adiga saalax u taqaan markuu dharka iska dhigo waxa arkaysaa sad adiga maxamed iyo sadiiq iyo nuur iyo sad u taqaanay oo saaxiibka nuur aad saaxiib u aheedeen markii badal la tago markii banooni la ciyaaro oo aad aragto waxaad arkaysaa naasaha weynaada oo ka sokow in ajiraha caloosha qaybahaas oo dhan inay ay duxday aad ugu badantay marka dhamaantoodna waa wax la sixi karo oo la tacaali karo sababtoo deformity u keenaysa qofka fool xumay u keenaysa markii uu muuqaal dumar u yeesho soo qof rag ah waxay u keenaysaa deformity marka waana wax hadda la sixi karo waxyaabaha sababo waxa kamid ah runtii daawooyinkan la isticmaalayo qayb kamid ah tusaalahaan daawooyinkan loo isticmaalo prostate coagulant prostate gland coagulant haddii daawooyinkaas loo isticmaalo kala qayb kamid ah way keeni karaan naasi qofkii weynaadaan steroid ko kala daawooyinkan qayb kamid ah way keeni karaan qalajiyaasha qaar kamid ah keeni karo marka daawo walba aad qaadanayso waxaad u baahan tahay dhakhtar khibrad u leh oo deformity-gaada iyo wax ku saameyn aan ku geysanaynin muuqaal ahaan iyo shaqo ahaan jirkaadaba inaad la tashato si aysan wax saameyn ay kugu yeelan tusaalahaan hadda daawooyinkan qalajiyaasha antibiotic oo kale qayb kamid ah waxay keeni karaan marka daawo walba aad qaadanayso qof walba shaati cad qaata ha ka qaadanine mustaqbalkaagu saameyn ka weyn ha isku keenin adoo jismi rageed la hadii ma garanaysaa ama gynecomastia saweynaad adoo qabanaas dumareed adoo qabo ayaad waxaad isticmaashay daawooyinka badinay marka waxaad qayb ka qaadatay foolxumadaadii ayaad qayb ka qaadatay marka daawo walba aad qaadanayso waxaad u baahan tahay in consultant ama la talin ku haboon aadayna runtii hadda u soo badanaysa waxaan loo sababeyn karaa mid aan sheegnay hormoneska waxyaabo la xiriiro iyo mid aan sheegnay hormoneska ayagoo waxyaabo yar ay ka qaldayeen inuu qofka asiga uu sii qaldo marka isbitaalka jaalasiyaad waxaan aad iyo aad xoog u saarnaa mawaadicdii aan runtii aan isleenahay maanta bulshadeena qatar badan ay ku hayaan oo waliba ayaga qaar kamid gacantooda ku abuuro ama ayadoo minor ah oo jirkooda ku yara qarsoomi karta ayaga ay domain ay ka dhigaan oo ayaga ay soo saaraan marka daawo walba aad qaadanayso waxaad u baahan tahay in dhinacyo badan laga fiiriyo adoo marka horeba hormoneskaada waxyaabo yar ay si ka yar ay ka ahaayeen oo naasaweynaad qayb kamid ah qabay haddii inta dhakhtar aad u tagto ama laftirkaada aad xitaa farmashin intaad ka qaadato ama meeluusan dhakhtar joogin in ay saameyn badan ay ku keensato oo beri kamaan aad noqoto qof isqarinayo xitaa raggii aan ku dhex jiri karin marka isbitaalka jaalasiyaad runtii daawo walba aan bixinayna waxaan aad iyo aad uga fikirnaa ayadoo daawo walba ay inta badan daawooyinka ay khatar leeyihiin oo hadda clinical center oo 100 sano la isticmaalay dawladda Mareykanka ayaa ka saartay daawooyinka la isticmaali karo oo sheegtay inuu cancer dhalinayo marka kuba lagu leeyahay maanta waa la isticmaali karaa laftirkooda beri saameyn yeelan kara marka jaalasiyaad waxaan si gaar ah uga fikirnaa